mahadinaynaa inaga soo qayb galiyay kulanka diineed inaan diinteena macaan isku baraarujino oon iswaanino oon isku nasteexayno waataan ilaahay ugu dhowaanayno kulligeen weeyaan salaadii maqrib markaan tukanay kulligeen waxaa laynoo jeediyey wacdi dhammaystiran wacdigaasi muxuu ahaa waa janaasadii aan ku tukanay weeyaan kafaa bilmowti waacida qofka waana waxaa ugu filan waa geerida dad dhalinyar intaan la eg qaarkeyn ay xafadata kitaab illaahi ay yihiin qaar culamo ay nala joogaan qaar ducaada ay nala joogaanna janaasadaasi ilaahay waa waafajiyey inay ku tukadaan khayr badanna waan u rajaynaynaa nabigeena calayhi salaatu wassalaam maalin maalmaha ka mid a janaaza la hormariyey markaabay saxaabadu janaasadii bay khayr ku ammaaneen markaabuu nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi way waajibtay markaasaa haddana janaaso kalea nebiga la hormariyey tiina shar baa lagu sheegay shar oo naf xun oo acmaal xun ka shaqaynaysa inay ahayd baa nebiga hortiisa lagu sheegay markaabuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi wajabat waa u waajibtay saxaabadu waxay yidhahdeen cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayaa yidhi maa wajabat nebi allow maxaa waajibay bal noo sheeg janaasadii horena khayr baad ku sheegteen buu nebigu yidhi janna u waajibtay buu yidhi janaasadii dambena shar baad ku sheegteen oo ayadana naar baa u waajibtay ininkuna markhaatiyowgii ilaahay arlada dusheeda u joogay baa tihiin buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam markaa dadkaas masaajidka soo camiray inay wacdiga iyo waanada iyo nasiixada iyo baraarujinta ay dhegaystaan u yimiday ayaa ilaahay waafajiyey janaasada inay haddana salaadeedii ay ku tukadaan waxaan u rajaynaynaa insha allah qofkaas inuu yahay ahlalkhayr insha allah dhahada eheladeenna wixii naga dhintayna ilaahay waxaan uga baryanaa iyakana inuu qabuurahooga u nuuriyo uu cadaabalqabrigana ilaahay ka badbaadiyo innakana ilaahay khaatimada inoo hagaajiyo ilaahay casa wajalla cibaadadiisuu adduunyadan inoo keentay addoonkuna rabbigiisa laba unbuu ku caabudaa mid saddexaad ma leh laba shay haddii cibaadadeenna laga arko cibaadadaasi insha allah waxay noqonaysaa maqbuula al-ikhlaas cibaadada aada cibaadaysanaysid waa inay kaa noqotaa ilaahay dartii haddaad salaad tukan iyo haddaad soomi iyo haddaad qur-aan akhrisan iyo haddaad ummad wax u sheegi iyo haddaad diin baran iyo haddaad diin bari iyo haddaad dhaqaalahaaga diin ku bixin iyo haddii maaragtaane ummadaada aada waqtigaaga ku bixinba waa inay cibaadadu kaa ahaataa alla dartii wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin ikhlaas camalka qabuulkiisu waxaa asaas u ah ikhlaas camalka labaad ee la doonaya acmaasheenna inaan ku qabanana waa maxay almutaabaca inaan ku qabano dariiqadii nabigeena calayhi salaatu wassalaam ikhlaasku waa laa ilaaha ila allah mutaabacaduna waxa weeyaan waa muxamedun rasuulullah ikhlaasku waxa weeyaan maaragtaanay waa towxiidkii waa laa ilaaha ila allah waa iimaankii mutaabacaduna waxa weeyaan waa cilmigii weeyaan ikhlaasku waa ka ruux weeyaan mutaabacada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu dayanayana waa kal jasad weeyaan sida ruuxda iyo jasadku u kala maarmaynin ee mar walba labadaa iskugu baahan yihiin ayaa cibaadadeennuna labadaasa asaas u ah laba shayna waa hadaf weeyaan hadaf inuu addoonku mar walba labadaa u isordhigaa khawfan wa tamaca haddaad cibaadaysanaysid labadaa ilaahay waa inaad ku caabuddaa cabsi iyo maaragtaane tamac rajo aada ilaahay naxariistiisa aada rajaynaysid mu'miniinta muttaqiinta ilaahay markuu ammaanayuu sifaadkooga ka sheekaynayay
وكي إلهي كو أماني لها هبينكي دين عوغو جيفك كمرة قبا إلهي يري يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع هبينكي هل كدتك كلا أي جيفان أيا إلهي أضومه سو هبينكي جيفك كمرة غاني إن ير إنتي سيحدان بي مركز دنبانا عبادة يطاعد يبريد الله أسوك عان عبادة أي عابد يا إلهينا وحا أساسؤه خوفا والطمعا إلهي بي كعب سنيان عردي سأي كعب سنيان طمعا إلهي ويكو عابد يانو نحريست إلهي جنة أي ككوتهي بالرجينيان ومما رزقناهم ينفقون با إلهي لوحا كو أرزقنا ويبحنيان مالكوغا هدي لغا دلبو دينتا كو بخيه ليرادنا way ku bixinayaan dheecankooga hadii leeyahay diinta ilaahay ku bixiya way ku bixinayaan aqligooga iyo cilmigooga hadii leeyahay ilaahay dartii u bixiyana way u bixinayaan wixii aan nicmad aan ku arsaaqnayna way bixinayaan ba ilaahay yiri tabaaraka wa taala marka labada sifo waa laba sifo oo la doonayo qof kasta oo muumina mar walba qalbigiisa inay ku jirtaa khawf ilaahay azza wa jalla ka cabso ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكيلها قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحدكم بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم عمل كين أبو نبي ولا حريرية وعمل كصالحة حكالقوين وسددوا توصي أبو نبي ولا عمل كينا وعمل كينا وحا كتوسيسان طريقة النبي عليه الصلاة والسلام طريقة رسول كان كتوسية وعمل كحدو سنها نبي أو خلافه قرمره عمل كاس إلهي أقبل مايو مركا عمل كإن لحريرينا وأمر ويان ما هن مرنا تكو مرنا دا مرنا صوم مرنا دا مرنا مساجد كسو حدنو مرنا كبح ماها وحلدونا يا الدوام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل إلهي أكتيس عمل كاللوجع لهي وعملك وأضونك دائم ولو عملك سحابة يراده مركاب النبي يقول يا قاربوا حريرية أبو النبي يقول يا عمل كينا وسددون التوصية وعمل كينا واحد كتوسيان ثوابك كتوصية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلهي كعبدا واعلموا أقاد أبو النبي يقول يا هي إنه سنمتكينا عمل كيسا كنا بدقلين قيل ولا أنت يا رسول الله يا رسول الله كل أذيك نقطنا مياه markaabuu nabigu yiri walow anigana ha noqotee camalkayga aad ku nabad galaysaa is orani maaye naxariista ilaahay baan rajeenayaa inaan ku nabad galo rasuulku yiri wa nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wassalaam ayaa ma aragtaan sida uu cabsoonayay habeenada kamida nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu qiyaam leelkii u kacay aayadahan ugu dambeeya suuratu al imran baa nabigeena ku soo dagay aayadahaasi waxay cadaynayaan ilaahay cadamadiisa bayaaminayaan bilaal baa markaa nabiga u yimiday markaa buu yaa rasuulullah salaadii baa lagu sugayaa ee soo kac markaasaa bilaal wuxuu nabiga indhihiisaan fiiriyay ilinta nabiga ka daaday ishiisa meeshuu nabigu ku sujuudayay ilintu qoysay markaasuu yaa bilaal xalaytoo aayadahan quraanka ayaa dushayda ku soo dagay waylun liman qara'aha walam yatadabbar waxaa hoogay oo khasaaray buu nabigu yiri aayadaha quraanka ninka akhristay ee tadabburi waaye tafakkur iyo cibro ka dhex ku cibro qaadan waayay kaasaa khasaaray buu nabigu yiri alayhi salaatu wassalaam inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار حبسي بو نبينا إلهي كو عبدا يا عبسي عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء حديء وعبسوني وليه عمل كيغا كو تلقى مايو لكن حريست إلهي ما كو تلقى ليا إمام الأنبياء دعادي سأقوب النيدي نبينا لقى وريو كو دعاي سنة وحي هاي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله قلوبت بن آدم كقدنا يوم إله قلبك حق كسب هذه دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي أهي دعوينك وقب بدنا نبيين وكد عيستي دعاء نوال وريي يا دعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ودعوينك أقبضا النبي جينا عرب كيس كسو نقنقونيسي إمام الأنبياء نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام والنبي قرآن كإلهي وكشي يقولي ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وحلو بلن قاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام مقام المحمود ما شاء قدر جدس الرئيس الجنة إن إلهي إساق أودياريي وكي النبي يقول لها آذانك مركز مغليسان فقولوا مثل ما يقول المؤذن مؤذن ككدب هذا النبي لإرادة أوليه ثم صلوا علي آذانك مركز دما يا مؤذن كنا يقول صلي أبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام لأن مركز إلهي وسيلة ويدية من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة نكا وسيلة إلهي ويدية شفاعة إذا أيا حلالو بيسا وسيلة أيا نبي معنا يو حيري ومنزلة في الجنة ومنزلة جنة دحدة إذا كنت الله لا تنبغي إلا لعبد من عباده وأرجو أن أكون هو أبو نبي عليه الصلاة والسلام ومنزلة أقصر رئيس جنة الله قالوا يانت أقود درجة الرئيس أدومها إلهي كمدا أمبا قلي دونا وحنا رجينا يا أبو النبي لنا نهانقو أدون كاس نبي قاس مقام كيس إلهي القرآن كأوكو شيء إساقنا ما ركتاني أحاديث صحيحة إنه قعد منزلة إله ديس وكل يهي أيا دعاء ديس وقبضا وكد عيسى أي نقطي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مركع خوفا وطمعا إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين بإلهي آل زكريا ري زكريا عليه السلام إلهي مركو أماني وحكو أماني إنا يا هايانك وخيرك أدقدقا عبادة أدقدقيان صلاة أدقدقيان وناق السميستي سي أدقدقيان إلهي الرالي قلنتي سي أدقدقيان ويدعوننا رغبا ورهبا مركينا عابديان إنا بريانا وحين نقو بريان با إلهي جعيل نقو بريان عبسي نقو عابديان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين با إلهي كو أنك نوخش عسن بيهايين با إلهي تدك إلهي وأماني يا قرآن كان لقو عدي يا أمان توده صفات كان لقو أماني وحكمده طاعد أودك دقيين إلهي طاعد يسي أودك دقيين إلهي نوحي كو عبوديين لبضا صفي كو عبوديين عبسي إيه الرجو قورما مؤمنك لغا ربا عبسده قورما سر الرجو لغا ربا عبسده قفك مؤمنك وحا لغا ربا وانتو عافمات قبويا انت نوشهي اد عافماتك إلهي كسيي ان نبدقليد آد هيستد ان نفتو اي كو جيرتو مركنا لغا ربا ان العبسي إلهي كو عابدو رجدنا قورما لربا إني بدتو رجدو وحا لربا إني غالب نقطو أمركي وأمرك السكرات كو قبتي أجشوا أي كو قصروا حاضرتو مركز الله دوني قفك مؤمن إنو يدادو إله أنو تغي وإله كريمة وإله رحيمة أنو تغي ربي جي وناقنا كلا كل مويانا وحهم كلا كل بما يوانو قفك مؤمن مركز يدادو لكن انت العافمات كهيسي اللي حياتك إلهي كون لما يستري إنه لشان آد هيستي تطلاب سنة يسد حداد نقطة الرجا كنول معصية هذا إسقي وقفك كجرا هذا إلهي نحريس سر جيك ورما ما سعنيش أدو إلهي عبوديا أو صدقة بحنيا أو صوميا والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون بإلهي أتكون وانا أكسنا وحا إلهي كو أماني ويصوميان صلاة دي لا إيمانيان زكاة دي بحنيان وحان كو أرزاقني بيبيان حبنه جاي نقو أضيعيان بإلهي يري يكو هذا نقلوب تودو أي عبسون يسو أو إسله طلو أعماشا سبيلو إلهي كما بأقبلين با يكو عبادي سنية أي هذا نعبسون يان يكو تقوى دي لي هذا إلهي كبقيان يكو صفقه هوري كجري إلهي كبقيان يكو ليلا ونهارا إلهي طاعدي سكود داليا أي هذا عبسونيا رجدو قورما للربا قفك مؤمن كيني أتمادو
وأمرك الله قبطال الربعين هذا هي ربي جاي وكريم. ابن مسعود رضي الله عنه سكرات مركو أورذي عثمان بن عفان بصوب بغضي مركاسو ويديو كويري عبد الله يو محاد أبا أنت هاي بليشك بوكيد هل كيف هو قدرن ماذا تشتكي محاد كأشكتوني سامانتا بليشك وهل كيف هو قدرن وعلي ماشي يقدرن عثمان ومكو شيقا ذنوب تيدا يقدرن بولي ذنوب تيدا ابن مسعود مركابو كودي فماذا تشتهي هذا محاد جعشها بلنو شيك إلا قفكم مركو حنوسين هلا بدنا لو ويديا موقت ورني وهل كيف هو قدرن والله قاحيا يا نفس الدادو ما حي دونيسا نفتادو ما حي دونيسا إنك ما أنت قفك لها كيف هو قدرن هل كو شيء لها ورا الكيف شيء لها هل هو قدرن لقاها يوم بفرتك وقبل هل كابا هل كابا الله يقاها ككلنا وحولي دكتور باكو يدي يسوع ودكتور بان نفسه علينا ابن مسعود وحو يدي مركو عثمان وكو يدي هل كيكو قدرن وحول الذنوب تيدي با يقدرن بودي مانت او دافي مركا عثمان حولي هذا ما حد جعشه بلي شيء نفتادو ما حي دونيسا مركا بودي رحمه ربي نحريست الرب جايبان دونيا بودي مانت يان دونيا نحريست ربي جاي طمع وحال دونيا الطمع انه بلا مركه marka aad hatta qofku marka uu xanuunsan yahay la dul tago waxa sunnah in la yiraahdo la ba'sa la ba'sa alayk dibata kuma saarno ha cabsan ha walwalin xanuunkan miya waa lagugu meydhaya dambi dhaafaad ka helaysa ilaahay baad ugu dhawaanaysa darajaadkaaga kor loogu qaadaya waad ka kacaysa salaama insha Allah dibata arki meesii waa in qofka la yiraahdo لأن مركا قفك مركا ودمنا يانا ودشي سواحا لقول لقنا توحيدك لا إله إلا الله لا إله إلا الله ده لما يداد ده تدادي ولا إله إلا الله ده تدادي واحد لقى يا شيطان كانوا سكة الأوتو سوق يدادو وما قال بانه مسلم بانه وعروا وقفوا كل انتبه أدونك سوقوا عرونا لكن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كيني نقدمنا يبو نبي يري وحاد الله قنتان لا إله إلا الله مقاشية وياه isaga dushiisa ku dhahada kelmadaas soo markaa kaaga soo dabiicilay isaguna kelmadaas haduu kelmada qofku markay ka baxaysa naftiisu ay noqoto kelmadaas waa kii nabigu lahaa jannu galay man maata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa allah dakhala aljanna wa fi riwayatin man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna haduu u dambaysa qowlkiisa kelmadaasina jannu galay buu nabigu alayhi salatu wasalaam jannadu markaas waa shayga la doonayo qofka adduunyada intuu joogo cibaadada ilaahay aad caabudaysa labada ku caabud tamac ilaahay naxariistiisa rajee oo jannadiisa rajee oo dambi dhaafkiisa rajee oo maghfiradiisa rajee oo ridwaankiisa rajee cabsooyo dhinaca kalena ilaahay caaradiisa ka cabso oo cadaabkiisa ka cabso oo waxaad mar walba sor dhigtaa ilaahay aad u tagaysid waa kariim naxariis badan weeyaan عمل كان مركا أنقبناينه مر والبا واحد كوبنين يسلب هذا الشيء معاصي مركا نقطنا نفط واحد اللي قاعد بسيا عذابك إلهي عمل ونكسن أو طاعة مركا نقطنا نفط واحد اللي هردق الثوابك إلهي عمل كانوا كاسين يا قف يلا هردق النفط الله هذا أصلا بأدوك يلا معروف يا منكر معروف وواحد وناقة شريعة إنك أمر سنة التي مادد معروف كمركا القبانة سنة جنة لسردقا وحا منكر شريعة أي كار ريبتي مركا النفتي الشيطان كودا عي كليهينا عرض إلهي عذابك إلهي بالهردقا نفت دنا جنة إلهي مركا ينوب باللنقاضي جنة الله ينقيدي أمين هذا جنة ودار مقع بدن بقرآن كإلهي كشاقي إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين في جنات النعيم إن للمتقين في مقام أمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قرآنك إلهي تبارك وتعالى وعلى
انت نارت وكورم إلا أكبر إلى هاي جنة كورم هذا يسلكين آياتها قرآن كمرق إلا باري آخرة كورم يا لفظك وكيم دي الآخرة وعلى وقادين بقول يشان يتومن قربا إلى هاي الآخرة الدنيا مرقين نقطنا لفظك الدنيا آياتها قرآن كوحا كيم دي مقعدة بقول يشان يتومن جارون جنة ودار إلهي تبارك وتعالى بني آدم وحي كل راحي سنة ينودن لقول لهم يستري يانا قليا إن الأبرار لفي نعيم دتك أدون كدوشي ذا إلهي كقعب صدا إلهي كقبقة أيا إلهي جنة وديارية دار السلام دارت النبت قليدا دار الخلد دارت وارتانكا دار الحيوان با إلهي دارتي نولشا وصاحبك هي سديد مقع با قرآن كان لغو شيئا جنة وإلى إلى سديد مقع جنة عدن جنات النعيم جنة الخلد جنات الفردوس وكن نبينا لها عليه الصلاة والسلام إذا سألتموه فاسألوه الفردوس أداد إلهي ويدي سنيسان وضباهي أشيغان إسان بنبي قيدي فردوس إلهي ويديستا فإنه أعلى الجنة جنويك أيضا أقص الرئيسة وأوسط الجنة أيضا أنا أقبر تميسم نبي قيدي وفوقها عرش الرحمن سقف جيغو وحا هذا عرش الرحمن كا ومنها تتفجر أنهار الجنة وبيالك الجنة مرودنا آيات كبر قمام رسولك فردوس الأعلى الله ينقيه فردوس تدكي جنة قيمة هيك قرتي وحا كمدها صحابة محمد هويني مدو أيا نبينا أوتم يدو مركا كعبا يسحنون كلا إلى هذا قلل كصوحدة صوحتانك ودعي جرتي مركز النبي قوتي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا وان صحابي كتير وان دعاء وحنون آدو دروين حنون كاسي الله ينقبض باديو دتكو هيان الله كقاضي وحنون قفكم مال شقو كل دعاء وسكور قبين ومير دبل سما يجيبي السبع ما انكي صورنا ما تقعي مركز النبي قال أوتي مديتري إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي أن لا أتكشف يا رسول الله جدتك أيا كل دعاء وان صوحا لأن مركان مرض أيا يقبل إلى أن تو الله يركع إلهي إيوي دي بيتري حنونك إلهي إنه يقاضو مرضنا يقبل إلى من مركب النبي عليه الصلاة والسلام وعود إن شئت صبرت ولك الجنة هداد دونت الجنة أيام كوجو هداد دونت واد الصبر حنونك أسوى الجنة إلهي كوجو سين دونا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ذاتك الدنيا دوشة ده كل صبر كوات كيست بلايدي مصيبة الله سود درستا ثواب كوجا الجنة إلهي كدقيا أجر كوجا بلا حساب إلهي سينيا هداد دونتنا وانكو دعين إلهينا عز وجل إنه كعافية حنون كابن كوبري مركبتنا ونسكن نقول إيكادي لأنه ويسون نقطة النبي يؤتم يدي مركب النبي عليه الصلاة والسلام وحي كتري يا رسول الله وانسكات كيسني إلهي الجنة يويدي بكتري بس شكدا مربى هذه جنة لقوه لا يو هلقا كدف لكن مد إلهي يويدي ما شان دون هنسكا دعي مرض يونيك بيله من بس iyadoo miyir daboolantay oo maankeegii uu tagay ayay xishoonaysaa ay cawradeeda dhowranaysaa maantana innaka waxa laga yaabaa gabdhaheena qaarkood iyo maaragtaane gabdhahayna la dhashay qaarkood inay gabadhu jirkeega halka ugu qurux badan ay istiraada ragga tusuha kugu soo eegtaan waana calaamaatu aakhir az-zamaan nabiga sheegay laba qolo adduunka iimaan buu nabigu dhoo soo socota qolob jeeda la wato dadka dariiqyada intay qabtaan ku garaacaya iyo gabdha maaragtaanay ismoodaya dhar inay xidhan yihiin wada qaaqaawan buu nabigu yidhi kuwa jannada gali maayaan jannada inay galaan iska daaye carfiga jannadana urini maayaan carfiga jannadana waxaa la uriya udgoonkayga 500 oo sano marka jannadu ku jirto ayaa udgoonkaygu qofka soo gaadha labadaas sinfi buu nabigu leeyahay hadda arki maaye
ورق بدد بي وطان وددك طريقة انت كحيان بي أي لا دعيان oo gardarray qofka u garaacayaan iyo gabdha maaragtaan dhar inay sitaan bay ismoodayaan kaasiyatun caariyaad baa nabigu yiri dhar inay xidhan yihiin bay moodayaan dharna ma xidhno way qaawan yihiin baa nabigu yiri maa'ilatun mumilat jidadka markay marayaan way isqalqaloocinayaan wixii meelaha rag ag joogana way qaloocinayaan buu rasuulku yiri sidaas ku qalqaloocinaysa raguna sida uu si eegayaan ula qaloocsami إذا لقول ورها إيجنا عندها قلابو وزيناها للناظرين أبوي لا حول ولا قوة إلا بالله جنة قال ما يا أبو نبي يقول كواسي عرفك جنة هل ما يا جنة أنا مركي عرفك وح الله لا شم بقول أصلا مركي مش لا سعد قفك وجرت قبل المؤمنات يا صحابية دم مدون ayadoo maankaygi iyo miyirkaygi uu daboolmay ayay ka fikiraysaa inay cawradeedu aysan baylahmin markaa bay nabiga ku tiri xanuunka haddii janno ilaahay igu siinayo iska daa laakiin meeshaan doon han iskaga dhace maradu inay iga baylahmin bas inta ilaahay weydii xishoodku fiicana haweenkana ku si fiicana waa u duceeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam ibn Abbas allah raalli ka noqdee ayaa zamankii dambe taabiciintii dadkii markaa nabiga aanan soo gaadhin ee saxaabada nabiga soo gaadhay buu ku oran jiray ala uriika imra'atan min ahli aljanna haweeney ahli aljanna ama ku tusaa markaa bay oran jireen haa haweeneyda madow ee halkaa maraysa waa ahli aljanna buu oran jiray ibn Abbas Ataa ibn Abi Rabah buu tilmaamuu ka yidhi Ataayow haweeneyda madow soo ma arkaysid haa waa ahli aljanna weeyaan haweenka jannada galaya aad bay u badnaayeen maalin gabadh baa tidhi 10 mubashiriina biljanna baa la sheegay hawa dumarkii jannada gelaya hama la sheegay khadiija radiyallahu anha almu'miniin mubashira biljanna kaligi jibriil alayhi salaam ayaa samada uga yimiday markaa buu nabigeena u yimid alayhi salaatu wassalaam wax kala masido allaha salaamku salaam ka wada ayuuna u sida khadiija al-kubra radiyallahu anha almu'miniin buu u sida oo yiri ya muhammad المؤمنين خديجة الله سلام كاسو سلام أيي وعنا اللي يقولي وبشارة قصر الجنة كويا لا إله ودياريه أنس بن مالك رميصاء أم رميضاء أيضا ومبشرة بالجنة ونبينا عليه الصلاة والسلام أيا كويري سليمي حليتو لجنة أيان قالوا إلهي إتصي أضا يهر سعودنا وانكو أركب رسولك كسو يري فاطمة إن محمد عليه الصلاة والسلام وأيضنا ومبشرة جنة والله بشاريي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يا يري فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة إن أنت إذا فاطمة برسولك يري أوينك أمد نبي محمد الجنة قالي دونا وقبضه وقود رجس الرسول أكبر وقبضه برسولك سمية رضي الله عنها يدنا وأهل الجنة ويدا هي ننكدي هي إنكدي عمار مركو النبي قد دل يمدي أيكم مقالة مكة رجح ذي هي جقع قال له عذابا يو وأمرك الدين غريب كهيدا مكة لا عذابا يا مؤمنين تا إيه قريش أي عذابا الصحابة رسولك أيو النبي قد كريم دي سمية وأم عمار هي أذكي ياسر هي إنكدي عمار ولا عذابا يو مركز سيدين الدهر هكذا يا رسول الله سنتك أوردن أنكم مدبك يا عذاب كما كجرينا مركب النبي يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبرا النبي يقول أتكيستا أبا الكينو إنك واجنة ويانا هذه الجنة أي مغلان وحلي وحد دباتة الدنيا لسه درستون ويا المامين يوم way bogtaa haweeneyda madow eeg xanuunkay qabta eeg way dhacaysaa suuxdin bay leedahay laakiin markuu nabigu ku yiri hadaad sabri lahayd janna ilaahay kuugu bedeli lahaa iska daabay ku tiri bas halkiisa ku dhaaf Rabi'ata bin Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu khadimkii nabigeenu ahaa alayhi salatu wassalaam ahla sufihi magaalada Madiina
qareen iyo qaraabo aan ku lahayn nin ka mida ayuu ahaa masaajidka nabigeenna mu'akharadiisa dambe ayuu deganaa ahla sufuh waxay ahaayeen rag maalmo dhan ayay afkooga aynan heli jirin cunto ay geliyaan abaa hurayra ka mid ahaa markay nebiga ag fadhiyaan baa la yidhi xataa cawradoodu sidaynan u muuqan marada yaray sitaan ee guntiga ee hoosta lagu xidho ayay labada lugood intay qabtaan bay isku xajinayeen baa la yidhi iyagoo cawradooda nebiga ka qarsanaya dhar la'aan cunto la'aanna nebigaa u yeedhay maalin ahlu sufaha laba timiruu nebigu siisiiye laba timira maanta aduma ku qadayn lahayd barwaaqaan ku jirnaa inaku barwaaqo nicmad shukrigaa inagu yar maanta laba timiruu nebigu u dhiibay ahlu sufihi war abaa hureyra labadan qabso war rabiic oo labadan qabso war fulaan oo labadan qabso abaa hureyra allaha raalli ka noqday wuxuu yidhi xabadna waan cunay markiiba oo waan gaajoonayay xabadna halkaa guntiga ayaan ku duubtoo ku laabay markaabuu nebigu igu yidhi lima rafacta haadihi ya abaa hureyra xabaddan timirta halkan aad gelinaysa maxay tahay cunde markaasuu yidhi hooyadii baan u geynayaa buu ka yidhi markaa buu nebigu yidhi hooyadaana annakaa kuugu dhiibaynay iska cun buu ka yidhi abaa hureyra waa ninka maanta xadiiskiisa markaad maqashaan aad ku raaxaysanaysaan xadiista aan inta badan aan sheegayno o dhan isagaa wariyay inta badan laakiin uu sabray uu tabcay diinta tacab buu geliyey diinta uu u gaajooday diinta uu u huray wuxuu jeclaa inuu magaalada madiine ka xogsado uu karayay laakiin wuxuu gartay jawaahirta nebi maxamed afkiisa ka soo baxayso ummadda u reebay ilaa qiyaamaha rabiica markaa raggaasuu ka mid ahaa rabiicata binu kacb alaslami radia allaahu canhu wuxuu yidhi isagaa ka sheekaynaya habeenkii markuu nebigu soo kaco calayhi salaatu wasalaam ilaa aqalladu markaas zamankaasi aqallada dhexdooda busqulo lagu xaajoodo iyo tuwaaleed ma lahayn bannaanka magaalada madiina loo bixi jiray magaalada madiinana bahalo iyo baholo badan bay lahayd markaa buu yidhi rabiica nebiga ayaan u soo qaadi jiray buuhi markaa cadaygiisa iyo biyaha weysadaan usii diyaarin jiray buuhi habeenkii madiinat almunawara marka dhulku uu yahay xilliyadanna qabowgeega waa cadi maha qabowgeega markaasaan u keenay nebiga biyihii weysadii iyo cadaygii dana xaajadiisii buu nebigu soo gutay intaa nebigaan la socdaa buuhi waan way ilaalinayaan nebiga moogtahay sal alla alay slam markuu nebigu soo noqday buu arkay rabiica oo aad u dhaxmoonaya oo gaajoonaya markaa buu nebigu ku yidhi rabiica salni maanta waxaad doontay weydiisay buu yidhi caawa nebi maxamed baa hadalkaa leh ku salliya yaa rabiica salni yaa rabiica waxaad doonta caawa sheego yaa leh hadalkaa muxamed calayhi salaatu wasalaam waa nebigee waa nebi ducadiisu mustajaabo ay tahay waa nebi awood u yeeshay geed inuu u yeedho geed buu u yeedhay geed waa nebi ilaahay uu siiyey ta'yiidaad iyo mucjizaad dameerka hadalkiisuu maqlaayay nebi maxamed dameerka waa nebi ilaahay awood wuxuu geliyey hadduu odhan lahaa buurta ilaahu halkaa ka qaad ilaahay buuraha uu ka qaadi lahaa magaalada maka baa layidhi waa nebi rabiicow sheega caawa waxaad doonaysa waa isku noqonay ii kaadi nebi allow halkaa buu fadhiistay ninkan uu nebi maxamed ku leeyahay baahidaada caawa ii sheega waa nin magaalada madiine aqal kuma leh jago kuma leh qaraabo kuma leh qareen kuma leh meeluu wax ka cuna ma haysto hadiyadda nebiga loo keenaa ayuu nebigu ahlu sufahna uu wax ka siiyaa maalmo dhan baa soo wareega 3 maalmood 4 maalmood 7 maalmood calooshooda cuntay geliyaan ma helaan xabad timira hadday helaan bay iyo abaal ku qabaan ninka baahidaa ay hayso ayaa nebi maxamed fursad intuu siiyey uu ku leeyahay yaa rabiica waxaad doonta caawa sheego salli ii sheega caawa waxaad doonaysa markaasuu u yimid oo wuxuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna yaa rasuula allah wax kale oon sheeganayaa ma jirtee inaan jannada kula noqdo rafiiq ilaahay intaa ii weydii buu ka yidhi meel baa u caddayd iyaka inaan jannada kula noqdo rafiiq bas kugu arko kula saaxiibo
kula fadhiisto kula jaar noqdo ku arko intaa ilaahay ii weydii say nebiga u jeclaayeen cajiib indhahoogay ka jeclaayeen ubadkoogay ka jeclaayeen naftooday ka jeclaayeen waa kii nebigu cumar ku lahaa markuu cumar nebiga ku yidhi yaa rasuul allah dadkayga iyo dadka oo dhan iyo waxa adduunka yaallo oo dhan adaan kaa jecelahay naftayda mooyaane markaa buu nebigu yidhi cumarow weli weeyaan waa weli ilaa aad naftaada iga jeclaato weli iimaanku qalbigaaga ma fadhiisan ma naftaydana haa naftaadana cumarow ku dar wallaahi nebi allow naftaydana waan kaa jecelahay al'aana yaa cumar buu nebigu yidhi haddaa iimaanku qalbiga ku galay buu rasuulku ku yidhi hadduu gaadho iimaankaagu halkii la doonayey nebigay jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam markaad wuxuu ka fikirayaa adduunyada maaha waa aakhiro yaa rasuulallah jannada rafiiqan kula noqdo bas markaa buu nebigu mar labaad buu u qabasheeyey wuxuu ku yidhi aw hayra daalika taatu aan ahayn oo kalena sheego haddana markaa buu yidhi huwa daaka muraad kale anu ma lihiye muraadkaygu waaba intaasu markaa buu nebigu ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud waa hagaag rabiicow adiguna waxaad igu soo caawisaa sujuudda soo badsa buu nebigu ka yidhi nebigaa janno ii bishaareeyey ha ku gaabin cibaadadii ilaahay bal soo ziyaadi cibaadada daacadda ziyaadi salaada ziyaadi khayrka ziyaadi u dhowaanshaha ilaahay aad u dhowaanayso sii ziyaadi anigana miyaa taa aad ii weydiisatay waad ku dadaalayaa inaad iga heli doontee adiguna sujuudda igu soo caawi buu nebigu ka yidhi ayaku jannaday fahmayeen jannadu waa daar nuuceeya waa daar ilaahay baa dhisay tabaaraka wa tacaala dhagaxda laga dhisay buu nebigu sifeeyo wuxuu yidhi labinatun min dahabin wa labinatun min fidda labadan dhagaxee jannada laysduldhigee laga dhisay midna dahab buu ka samaysan yahay buu nebigu yidhi midna lacag buu ka samaysan yahay ahlaljannuhu jannada dhexdeeda buu nebigu yidhi way cunayaan way cabbayaan wakhtigay cunayaan xad ma leh wakhtigay cabbayaanna xad ma leh way cunayaan way cabbayaan ma saxaroonayaan kaadi yeelan maayaan qandhuuf iyo siin iyo khaakhatan midna yeelan maayaan buu nebigu yidhi cuntada maanta adduunyada ugu macaan haddaad cunto saacada kadib halkeed geynaysaa baytalmaygaad geyn aqalka adduunyada ugu qurux badan bilaa baytalmay ma dhici karaa inuu noqdo waliba aqalku ka sii qurux badan yahay ee si casriga loo dhiso ayaa tuwaaleedkiisana si casriga loo dhisaa iminka carabtuna tuwaaleedku waxayba u taqaanaaba bayturaaxa aqalka raaxada u yaqaanaanba aad cuni waa inay ku dhaaftaa cunnada adduunyadu laakiin jannada dhexdeedu waa cajiib cuntada jannada buu nebigu yidhi waa la cuni waa la cabbi laa yataqawaduun walaa yamtakhituun walaa yabuuluun walaa yadfuluun baa nebigu yidhi cuntada jannada waa la cunayaa waa la cabbayaa sharaabkeega maaha saacado waxa la cunayo boqolaal sano kumanyaal sanaa la cuni doonaa cunnadaa la cunaya buu nebigu leeyahay saxaro noqoni mayso kaadi noqoni mayso duuf iyo siin iyo qandhuuf iyo kaakhatana noqoni mayso oo haddaa maxay noqonaysaa cunnadii waxay noqonaysaa buu nebigu yidhi wuu daacayaa qofku daacada adduunka markaad daacdo islaantaada dhan baa ku odhanaysaa war daacadaada qarmuunkeega xaggaa noogala jeeso soo ma odhan karto war maantii maxaad soo cuntay waxbaa kaa uraya xagga uka yaa allah daacada jannada buu nebigu yidhi waa misk udgoon la ursado cadarka ugu udgoon ee jannada dhex yaalla ayaa calooshiisa ka soo baxaysa qofka muuminka biyihii iyo sharaabkuu cabbayay me ilaa jannada waxaa la sheegay webiyaal dhan inay durdurayaan webi caanaa webi malaba webi khamriya webi biyoah intaabaa hoostaada maraya markaasaad cabbaysaa haddaad maanta cabtid markaaba baytalmayga ayaad u baahan oo kaadi baa ku qabanaysa habeenkiina 2-3 jeer buu qofku kacayaa xilligu dhulku qabow yahay ahlaljannaha miyaa may kaadi yeelan maayaan buu rasuulku yidhi oo sharaabkii cabbeen muxuu isku bedelayaa waxau noqonayaa buu nebigu dhidid buu noqonayaa dhidid cunnadiina daacay noqotay udgoon
sharaabkiina wuxuu noqonayaa dhidid buu noqonayaa dhididka adduunka waa qarmuuna waa la iska maydhaa dharka aad ku dhididayna waad iska bedeli laakiin jannada dhexdeeda dharkana la bedeli maayo wajigana la maydhi maayo ahluljannati juradun murad kuxla laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum baa nebigu yidhi ahluljannati juradun murad ahluljannuhu gadh yeelan maayaan timo dhogorana yeelan maayaan xaggan walaa meel kale timo badanna yeelani maayaan gadhna yeelan maayaan buu nebigu yidhi kaxlaa indhahoogana waxaad mooddaa indha kuxulin loo mariyaad mooddaa bal wayba ku samaysan tahayba laa yafnaa shabaabuhum dhallinyarnimadoodu ma gabowda buu nebigu yidhi 33 jir wa fii riwaayatin 30 jir baa lagu joojinayaa ama 33 jir intaa ka yaraani maayaan mana dhaafayaan laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum dharkay xidhaana ma baaliyooba buu rasuulku yidhi jannada dhexdeeda suuq baa ku yaalla suuqa aljumuca la yidhaah suuqaabay ahlaljannuhu iskugu imanayaan buu rasuulku yidhi fatahubbu calayhim riixun min ashimaal dabayl ayaa xaggaa kaga iman doonta dhinaca bidix dabayshaasaa wejigoogii ku dhifanaysa suuraddoodii bay beddilaysaa buu nebigu yidhi kalarka dharkana way beddilaysaa iyagoo kalarkay xaafadda kaga tegeen dharkoogu kalarkii ma aha wejigoogu kalarkii ma aha ayay ku soo noqonayaan dumarkoogiiyo xawraadoodii xuralcayntii baa odhan doonta war markaad suuqa nooga baxdeen nagu soo noqoteen dharkiinni waa isbedelay kalarkiinni waa isa soo bedelay waa ini sidee markaaba iyakuuna odhanayaan wallaahi annakana intaan niga maqnayn waa layni sii bedelay ninkana suuqa adduunyada markaan tagno maxaan kala soo noqonaa qurux mise foolxumo boosboos baad kala soo noqon iyo cawlaan iyo siigo iyo dhafoorkaaga dhaf baa ka muuqanaya markiiba suuqa jannada ku yaallana qurux baad la soo noqon qurux dharkaagu baaliyoobi maayo dhallinyarnimadaadu gaboobi mayso mitir iyo badhna la ekaani maysida waxaad noqonaysaa dhararkii nebi aadam calayhi salaam 60 diraacan fi samaa wa 30 mitir baa lagu qiyaasaa ma gaboobaysid ma dhimanaysid ma bukoonaysid ma baahanaysid baytalmay geli maysid ma seexanaysid daraariya habeen waad iska ciyaariyo tuman insha allah dhahada qulu insha allah haweenka jannada nabigeennaa ka sheekeeyey calayhi salaatu wassalaam nisaa aljanna haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey buu rasuulku yidhi mid ka mida iyaka haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey mid ka mida buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jidhkayga ka soo baxaya buu nebigu yidhi ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku yidhi gabadha muuminadda ee jannada galaysee muuminka jannada loogu diyaariyey hadday adduunyada u soo bixi lahayd oy dhoolla caddayn lahaydna iftiinka iligeyga ka soo baxa ayaa cadcadda iftiinkayga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xawralcaynta ka mida faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nool oo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahaayeen buu rasuulku yidhi marada yaree madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxa dulyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi muuminku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye xawralcaynta dhuunteeduu isku daawanayaa markaasuu isku eegayaa wejigeeguu akhrisanayaa waxaa ku qoran naxnu raadiyaatu falaa naskhad annaku waxaa nahay kuwa ninkooga raalli ka ah oo weligood aanan cadhoonayn wa naxnu alkhaalidaatu falaa namuut annaku waxaa nahay kuwii weligood jannada ku waaryaayey ee dhimasho aan u saaxiib noqonayn wa naxnu naacimaatu falaa nab'as annaku waxaa nahay kuwii alla u nicmeeyey balaayo iyo buus iyo dhibaato aanan arkayn tuubaa liman kaana lanaa wa kunnaa lahu ka noo ahaada nin een annakuna xaasu noqonnaa liibaane bay leeyihiin ibnu cabbaas allaha raalli ka noqday isaga iyo aabbihiibe muuminka banka qiyaame kitaabkiisa gacanta midig marka laga siiyo
واتن آيات القرآن كإلهي كشيغي وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا إهل كاكو كوانا دون قاد كوهاي ستماها إهل كان أدوية قاد كوهاي ستو ابتلاء باللقوسي اختبار واللقوكو إيغيا إني إلهي طاعد يسكو سيجيان يينا طاعد إلهي أتكفو لسد باللقوكو إيغيا لكن إهل كاكو رنتو وحويان وكمالك قيامها مؤمنك قعنت مدي كتابك مركا لقصيو حسابي رو فضل حسابيو مركا أبو قدوما يابا إلهي لي إهل كيسي أو سوغيا أيو حقوق أنقون يابا إلهي الباب الجنة دي جوغاني كسوغيان باللي الباب كسوغيان كتاب كيسي بو قعنت مدي كقات حساب فضل باللفوضي دي حساب فضل وامحي لما بعد بو قيسي لما هي لما بعد هذه لا بعد وخطر إلهي با أسطوري أن حريستي سيبه هويي أدون بالا سوك اليوم دونا بنك قيامة بو نبي قولي أولورن دونا أديك الرب با كوية رأيه سوكع مرقاسا إلهي عز وجل سترقي سا إلهي هويني دونا مرقاسو إلهي أدونك أولا هلا يا هذا الك أدونك يا ربي سدح مرا يا مخلوق مقل مايان ملايكتو مقل مايان مقربينتو مقل مايان واللقا قرينيا waxa ilaahay qirsiin doona dunuubtii adduunka dusheeda adoonkan uu ku qarsanay baa ilaahay u sheegi doona markaas ilaahay oran doona adoonkaygiyo dambiga caynkaas iyo caynka aha ee maalin heblaaya halka aad ku samayseen ma xasuusan tahay markaas uu leeyahay ha markaa ilaahay oran doona adduunka dusheedana waan ku asturay maantana waa ku dambi dhaafay kitaabkiisa gacanta midii laga siinaya dadna xaqqa iyo jannadu u ordaya markaas Allah inaga dhigo kuwaas meedan dambi lahayn muu nagu jira may macsuumin manihin dambi uu naga dhacaya laakiin naxariista ilaahay ballaaran ilaahay naxariistiisa rajaynayna mar walba ka quusan mayno dadkana ka quudin mayno naxariista ilaahay dadkana ka quusin mayno مؤمنك مركا كتابك الله سيو إهل كيسيبو كنا غنيا ابن عباس رضي الله عنهما أيا يري متكستو كتابك قعنت مدق لقسيي حورادي سيبا يريد أوتاقنو سوغيسا مركا أبو دايمونا يا دايما شدو أو كليا أيا قالنا يسالي لتضبات السنة دو إيه بس سنة عروسك هبينك أوه الرسي حاسكا قلقو سوهويو labaatan daqiiqo saa ma u eegi kartaa war maxaad naga eegi bay ku oran indhahay faraa kaa gelin maxamed ya yani maba haleelaysid ba adduunka dusheeda labaatan daqiiqo qurux intaa la eegoo la eega dadka adduunka jooga ilaahay maba siinba fa maxaad u malayn gabadha 70 sano aad daawanaysid quruxdeeda iyo jamaalkayga ibn Abbas wuxuu yiri laakiin ayaa daawan doona ma taqaanaa وكأدونك إنتو جوجو محارمته عنده سكلابتا كاسحور العين تداوشي إذا كل راح يسندون وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والدايمون ساسو والدايمون مؤمن تضبات السندات تعانقه ويعانقها وكب بودي مركع ينو يكسو بودي معانقة ورغورينتا معانقة كل يبود ابن عباس هدنا تضبات السنة كل حدنا هيسن بودي صدا ونو هيسن مركو جنة دي أرك نعيم تيدي أفر شيء وأدوية أنت اللي جوجي قفك بني آدم كان الله سكو قرارين يسي أيا أهل الجنة مسكح ذو ذا كسر دعونا وأفرته وجيردي وجبوجي وباهدي وبكتانتي أفرتها مسكح ذو ذا كسر دعونا من نعيم كأنت لك أيا إلهين نسيي مركاسي أفرتها حصوصنا يا أنبال ليدي حق سرى لقد واقي الأورن دونا يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا يا أهل الجنة ما أنت لقد بلابا جنة واحد كل حليدهين نلل دائما لما شدا بأرك ميسار نعمة جوكتا لو نقصان دم بأنا اللهين دل يرنمو قبو دم بأنا اللهين عافي ما قب حنون دم بأنا اللهين الله ينسيه جنة داسا إلهي نوغو
باقيا مالين والبا ولقولي هي صلاة مركا تكنيسو مؤذنكو كلية حي على الصلاة حي على الفلاح جنة إسهر كان جنة كو حسابتها بشير رمضان باسوق شيء جنة إسهر كان صدقات بابيحي لقالي هي جنة إسهر كان قرآن بالقولي كالي آخري جنة إسهر كان آخرة وحبحي بالقولي هي جنة إسهر كان مركب النبي عليه الصلاة والسلام مجلس كيسي سوق معلم فرديا أي نمكي مهاجرين تي مكة كسو هجرودي أي سركعوا النبي كوير هذين نبي الله مقال هذا مكة أنكو أنك إيمانين كسو بحني ماء زمزم بانكو هايسنو إيم ما هين هل كان بيه وإيم مقال هذا مدينة علشان نمن يهودا أنت بدن إسكا هايستا لعقان كويب سنة ما هايسنو marka ninkii ceelka bi'r ruuma laha ayuu nabigu u tago wuxuu ku yiri asxaabtayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabaane markaasuu u fasaxi maayo oo anu ceelka yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyayo reerkayga ayaa ku biiliya marka buu nabigu ku yiri bi'nihi bi'ayn fil janna il jannada ku taala ceelkaaga ku bedelo ku iibso markaasuu yiri may ceelkayga yar iska iibin maayo iska kaydaa buu kay عثمان بن عفان رضي الله عنه وذكيها وعقل بدنا وإنشي سميل در وحكا أركايي وبصير إلى هاي أوسيي أي هذا النبي قلبي قيسا كل بعي بعنيه بعين الجنة الجنة دا كنت على عيلك إيقا إيبسو مرقابو نيكي إسكدي دا نيكي عيلك لها عثمان بان نيكي وتقو يري عيلك آقا هدين لغاير هذا العكو إيبي ما إيبين لهاي هاوان إيبين لها واي قرقر ثمين مركا واي كوهشيين صدن كن أو درهم عثمان لعقتي بسوق هذا أودجي عيال كفوري سيقصوا ورجبوا كيل وكسوقات رسولك عليه الصلاة والسلام بوك نوح كيري يا رسول الله عيالك بئر روما هدي أن كانوا إيش جنة كنت على إنك الله بلغ هذا إسكدي دي أنا كما لي بلغ هذا يا مرقاب النبي يقول ها مرقاب عيال كفوري سواكا أصحاب هذا ووقفوا يا عدنا صدام بوري عيالك هذا تلبيسه ووقف هل استعمال برسول الله مركب النبي يقول فرحي عندها النبي يقول مركب كرو قادو وحيري عثمان إله الرالي ما كان نقدر الرالي كان نقو عثمان ما أنت لقى بلا عمل دم بهدون السمين با أنت أبو جنة كو قلب رسولكم بعنيه بعين الجنة إن درجات تدت كاسها سماه يا بس سياسي صلاة أتوكلين بالقرن إن درجات هو أنا كنت خسنة سوا صعدة إسبدل كجيس كأفريقيا كفال الله ضايق دقيستا إذا عادم تقول له سوف يسيو يا الله عقلك آخرة كنت سني ويا عقل ما نلا الشدم بعقلك كو جدي ويا عقل ما أرجو هذا آخرة كو أركي ويدا كل حسابتين ويدا أرك صح ما جنة هدي مغلان أصحاب رسولكم وهي هيان الكابس كدقية جنة مركا جنة داسان سور دقينا مركا صوم إنه صلاة إنه صدقة بحنا إنه زكاة بحنا إنه والد كوسا مفلا إنه جنة نبى النبي قوي مدوي الجهاد بان ربع وين الجهاد بحدا تمدها جنة دون زها جنة دون يا نبي الله وحكى لما دون يو لما دادي والد من نول يهين ما هو يا نول ما يدو كار راليات مدي مسيدو سفر كاغا رالي كاهين ما يدو اويسان كايمدي مرقاب النبي يقول سو جنة وما سعوتدها ويدا كنا نقول لوقتيدا قبسو halka baad jannada ka gali doontaa adigu yahay الزم رجليها ثم الجنة ثم الجنة لقطة قبصو جنة halka baad ka gali طاعد إلهي مركات قدنيسو waxaad soo dhigaysaa waa janno macsi markay nafti iyo shaydaanku kugu yeedhaan ee shaydaanka iyo naftu ay ku yiraahdaan ilaahay caas oo dambiga samee oo waxa ku dhac markay nafti iyo shaydaanku ku yiraahdiin waa inaad soo dhigtaa ilaahay cadadiisa soo dhig inna batsha rabbika la shadid inna rabbaka labil mirsad ilaahay ku xisaabtan cadadiisa ka cabsi naftaada marka labadaas la doonaya ilaahay inaan ku caabudno tama'an khawfan wa tama'a cabsi iyo rajo cabsida goorma la rabaa waa intaad caafimaadka haysid
eed nolosha haysid eed dhallinyarada aad tahay eed amniga haysatid ilaahay cabsi ku caabud maalintaad heer xanuunsatidna ama xaalad adag ay kugu timaado ilaahay raxmadiisa rajiye markaas oo haquusan oo waxaad tidhaahdaa naftaada waxaad ku tidhaahdaa rabbigay waa naxariis badane waa deeqsi badane waa kariim weeyaan ilaahay waa kariim kaad la shaqaynayso waa kariim sidii ninkii xajka u socday mar alle markuu ixraamkii u xidhay ayuu maqlay ayuu yidhi labayk allaahuma labayk markaa dushiisaa laga leeyahay laa labayka walaa sacdayk xajka aad u socoto lagaama aqbalin safarkaa aad u xamaan qaadatayna ilaahay kaa aqbali maayo iska joog hadal baa dusha kale dhawaaq mid isaga gadaashiisa joogaa hadalkii la maqashiiyey kii baa ku yidhi yaa sheekh maxaad ka xajin adigu labayk allaahuma labayk markaad tirahdaba jawaabta maad maqlayn markaa maad maqashay haa waan maqlay ma haddaad maqashay haa haddaan maqlay wuxuu yidhi 27 sano ayaan ilaahay gurigiisa u soo qasday mar haliya markaan xajka aanu ixraamka soo xidho ee talbiyadda soo bilaababa laa labayka walaa sacdayk baa layleeyahay oo waxaa dushayda laga leeyahay xajkaaga cimradaada sacyigaaga cibaadada aad u socoto ilaahay kaa aqbali maayo baa layleeyahay ee iska joog baa layleeyahe haddaan gurigiisa ka joogo oo socodka aan xaggiisa u dhaqaaqay aan ka joogo xaggee kalo oon tagaa bal ii sheeg buuhi adaan tala kaa qaadana bal ii sheeg buu ka yidhi may jirtaa meel kale wuxuu yidhi ama hal lay aqbalo ama yaan lay aqbalin anu ilaahay baan u socdaa xaggiisa buuhi meel kale uma socdo ka quusan maayo ilaahay raxmaddiisa waa kariim waa raxiim waa raxmaan waa xaliim waa sataar ceebteedno dhan buu qarinaya maanta dulqaad badane war ma cadaaladda ilaahay baan ku joogna adduunyada baa la yidhi satriga iyo dulqaadka ilaahay baan ku joognaa satr asturkiisa ilaahay baan na asturaya ilaahay baa noo dulqaadanaya laakiin haddii cadaalad la eegi lahaa acmaasha jidhkeenna maanta ka soo fulaysa iyo cisyaanka aan ilaahay caasinayno iyo sida macaasida waddooyinkeenna maqaaxiyaheenna guryaheenna ilaahay loogu caasinayo daqiiqad adduunka inaan ku noolaano xaq uma yeelaneen maanta toddobiyo 20 sanaan maqlayaa buu yidhi oo laygu jawaabayaa oo layleeyahay ilaahay xajkaaga kaa aqbali maayo iska joog dee maan joogaa ka joogi maayo waan socdaa buuhi oryaa u yimiday dawaafkii buu bilaabay sacyigii markuu dhammeeyey ayaa dushiisa laga dhawaaqoo la yidhi labayka wa sacdayk waan ku aqbalnay waan kaa ajiibnay 27kii hore ee xajidayna ilaahay waa kaa aqbalay baa lagu yidhi kii baa la maqashiiyey marka hore maqlaayay markaa buu yidhi sheekh waa lagu aqbalay wuxuu yidhi albaabkiisa maahayna albaab kaloo garaacaynaa ma jirta buu ka yidhi ma quusanayna annagu ilaahay baan haysanaa marka ilaahay raxmaddiisa ka quusan mayno dadkana ka quusin mayno bal ummadda waan tarqiibinaynaa waan u naxariisanaynaa dacwadda ayaan ugu yeedhaynaa dacwadda markaan ummadda ugu yeedhaynana waan u dhibrinaynaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin xadiidkaas siduu ku yimiday nin caraabiya ayaa masaajidka nebiga dhexdiisa cawradiisii intuu la soo baxay ayuu masjidka nebiga dhexdiisa ku kaadiyey saxaabadu markaasay ku yaaceen markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waar ka joogsada markaa buu nebigu saxaabadii ka joojiyey markaa buu nebigu ku yidhi waar ka joogsada kaadida ha ku goynine ka joogsada halkuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba buu yidhi isagii buu nebigu markaa u yeedhay ii kaalay adigu markaasuu nebigu fadhiiso ka yidhi u fadhiisiiyey masaajidkan ilaahay baa leh waa meel ilaahay lagu caabudo salaadaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu akhristaa tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir baa loogu talagalee ee maaragtaane wax kale masjidka looguma talagelin isagii baa ka sheekeeye oo yidhi wallaahi ima dhibsan oo ima dilin oo ima aflagaadayn macallin isaga lamida hore uma arkin dib dambana u arki maayo weli macallin isaga lamida ilaahow aniga iyo maxamed noo naxariiso cid kale ha noola naxariisan buu ka yidhi
صحابتي سيبوا نبي كويد هلكو كوكاذي بيك بدن كشبع إنما بعثتم ميسرين بعثتم وحادونك ليني كاني وليني سو ساري إن عدتك حق أرد برسانة إن عدو مدى حق كوات كيسانة دونك ليني مكاني برسولك بعثة ولقد بعثنا في كل قرية نذيرا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بعثة كلمة البعثة قرآن يقول الله والفاد إلهي سجارة مركو وتلمامة النبي يدا إريد النبي يدا ما لو أدك سجري اجتبى اصطفى بعثة وكلمات النبي يدا خاص كوها لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابتي سيبوا كليهي إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معصرين إن كلمة هنا أدوك اللي مسوا صارين هدين اللي نسوا صارينا رب العزة وحو نسوا صاري إن هذا مدى حق أرد برسان اللي نمسوا صارين إن هذا مدى مرقد حق أقود بين إنسان أتقوات كيسان ربعي بن عامر صحابي جليل كاها رستم مركو أتقينا وكي كوير رستم الله ابتعثنا إليكم أنك إلهي بنوكي سو صاري بوكي ورقفك مسلم كا ولا ليال مسلم وين أتفهمت إلهي باكو سو صاري إلهي باكو دورتي ومع إلهي كو دورتي دين تا إسلام كا إناد كو دغانتو أود براتو أود كشقيسو أود دين كو نولاتو أود دين كو نماتو أيا أدوية اللغو كيني هدف كاغونا أون نغضو إناد جنهش أنصار مرقو النبي يقول لم يبايعون يا أنصار وحو النبي يقول أنصار أي كوة باللمين بيعة العقبة مركي دعيسي يا رسول الله أنا كو قادني النبي كو يرادين مدينة المنورة وان كل تجينا سيدا نفط يدا عدو قانو قد دفاعنو يعني المها يقع عدو قانو قد دفاعنو الريرها يقع عدو قانو قد دفاعنو أيان هذيقنا عدو قد دفاعينا وحنا نؤقنهي هدان مقالة مدينة كل تجنو عالم كود أنت كنول أيا دقال نقصو قادي دونا دفاعها إنا قدام ماننا ديار بانونا هاي بقالها يقينا إنا الأذيك كوكب حينو ديار بانونا هاي ما لقى يا النبي الله مالنتا إلى هاي دين هذا وموجيو إيجوش هذه أي ظاهرته ما لقى يا إنا نقصو نقطو أو مكاكو صو نقطو مركب النبي يقول حكي يا ابن أبوي هل كاد كنا ولا تانا وكنا ولا أبو النبي يقول هل كاد كل ما تانا وكل من هل كديجين وكذا تانا وكذا ذن ديجي برسول كل يلا فيش وبيعة إيه يدي أنصاري نبي قد أحمر سيرة كتلا الله الدم الهدم بنبي هل كديجين وكذا تو ديجي وكذا ذن هل كقبره إنه أي نقطة بقبره إنه برسول إن مكة كسر نقطة وطل كي نيجا سرعة هالصور ديجاني نبود أنصاري وبلن هذا أنا كمان تيقادتان وصد النفتينا يؤبتينا يطمركينا عدو قد دفاع عسام هذا عدو قد دفاع ذان أنا وحني بلن قاضي يا هل كات كنا ولا تانا وكنا ولان هل كلا ينقو آسنا ولا يقو آسي هل كديجين وكذا تنا ديجي وكذا ذن وأنا بلن بنبي يري والله بنبي وحني شيء يا ذاتك الدنيا كنا لهذا دنا عي مرام أنصارنا حقا أي مرتو أولا إلى هذا كلا دورو هل كأنصاري أي مرتان مريبو رسولكم وعيد هذا وحقاك لكن ما حد نو بلن قاضي أو كلا نو شيء وتقولي سنة يسا إلهي بقوش كسين دونا أنا قلنا الدفاع عاقينا كنا ما الديار بانونا هي ما حد نو بلن قاضي سا نو شيء وعود الجنة ني بلن قاضي جنة محاكوين بالشيء ما أورن مدح بندقة دقيا دقالان النسينا يا ثلاثة دبضة إنك نيدي يا ما أورن وحاو نبي يقول وحاسوا الديو ككالي وحاو نبي يقول وبلن قاضينا جنة وذهلي دونا فعلا النبي يقول أنصار ودعي صلى الله عليه وسلم قرقارك أي نبي يقول قرقارين إلهي رسولك سأوحو أهيليين دين تأو قرقارين أي الله يقول ما قعدري الأنصار كوي إلهي النبي يقول قرقارين الله يقول ما قعدري marka inakuna inaan diinteena u gargaarna la inaga rabaa maanta oo aanan oran xilka diinta culimada baa ka mas'uula macallimiinta baa ka mas'uula jamaacada khaasa baa ka mas'uula may qof kasta muslim oo shahaadanaya diinta xil baa ka saaran inaad adiguna diintan islaamka aad ku dhaqantaa oo barataa
وواجب كسارنو إلهي باكوغو أدون صدي إن الدين تشقدي إذا أتكقيب قادتا أو مالكاغا وقتكاغا دقالهاغا عقلكاغا علمكاغا وحي إلهي صلاحيتكو قليي إن الدين الإسلام قادو كقشتا يدنا قيامها واللقو الدين دونا يوقو فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين بإلهي إنه لذكر لك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إن شاء الله هذا إن الدين تكشغنا وذن اليود إن شاء الله سيفي عنه هذا ده هذا نبدأ الصلاة اللوية توحيدك لما دل لك أرسي ده إن شاء الله فراغ مركان هيسنو مددا أفرت بلود يا لوضع بلود يا أفرت قعيشة بيش فصحات هاي ووسائل الدعوة سيدا تعليم تبقى وسائل ولا ده هاي وسائل التعليم ومحي ومدارسته منهج كمدارس ووسائل وياه منهج كان علمي قال له قد قنا يا متون علم المتون يا علم المطولات مركز بلغ لي ووسائل العلم وسائل الدعوة يبقى آلات كان يبقى نقضوا بيسان ووسائل الدعوة وأنا أقول لها يمديدنين لكن جماعة هنا يبحثوا oo qariyada jamaaca ku baxdo oo qariyada dadka ay baraarujiyaan oo maqaayada dadka ay u tagaan oo dadka salaada loogu yeero oo taariikhda salaaga gacanta la soo qabto waa wasaa'ilu dacwa bal taasa asalkii waliba nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wassalaam aalaadkan maanta inagu aan haysaneen dacwada u kaashanayno haddii aalaadkan dacwada ku fidayso nabi maxamed baa la siin lahaa laakiin nidaamka nabi maxamed ilaahay uu siiyey waa nidaamka ugu natiijo dhow in markaaba diintu caalamku dhan gaadho وانا نظام كي والنظام هو قف انه داله انه ها ان ادو قداشي اديق دقاله كا بخو مال كا بخو وقت كا بخو ديق كا بخو ديعان كا بخو دقاله كا بخو ودن شيغتي هر waxaad jeceshahay markaas diinta qiimaheegana aad garan dadka kalena diinta aad qiimahooga u sheegi karin hal qisaan nigu soo gaabin ninba oday inankiisu damcay inuu jarrabo imtixaan uu ka qaado wuxuu aabo dee 20 jir baa tahay 20 ka sano waxaanad cunaysaan ilaahay anigu isu dhiibo biilkayni siinaye maanta waxba ma hayo reerkii bahdi yareed waxba ma hayaane bal wax yar keen buu keenay maanta orado isu xoogso wixii keen kayar waa inuu hooyo waligii shaqo ma arkin adduunyo kama shaqeyn hooyadii buu tago hooyo lacag baan rabaa ay sii buu imisa $10 وهو معان ويسوى صارته ويسيسي أبيه بوي مدو ويل سو شقيه بو اسكا دغي ابا وا كان $10 هو ويل سو duceeday oo ka qaaday odayga marka gargaradaba hortiisa dab ka baxaya bulbul markaas uu qaado isagoo arkay uu ku rido $10 bul kiirabo eego wax isbedel yar kiira kuma iman hadana maalin dambe yiri bal maantana abaan ku sugaya duca qabatahay oo yadi buu tago oo bal wax yarsiyo maxay $5 uu keeno abaa ma sha Allah fariid way isagoo arkay dabkii hadana ku tuuray hadana maalin saddexaad islaantii baa tiri war lacagta bariyahan adiga gurta halkeed geysaa wuxuu abaa igu yiri bal ii shaqo tago waxii keeno deeyo wax shaqo ma garanay adigoo ma ka qaada markaabay taday muxuu ka dhigay odaygu lacagta wallahi deen wax ku falay aban moodayay gargaro hortiisa dab ka baxyo buu ku tuuray markaabay taday war lacag la gubaanigu ma haye orad aabaha u shaqo tago wareerinayga tag waryaa almuhim qola xaabo goreys u raacay xaabada se loo soo guraa mata abaan soo raaxo oo soo guray uu keenay lacagtii buu soo helay uu keenay lacagtii buu fiiqay baa leedo aabo markaabo dhinacan uu ka haya lacagta moogta odaygana uu eegay war maxaa jiray buu maanta aabo lacagtii hore way ka duwan tahay maanta buu oo kolkaana dabka ka daaday aabo oo maxaa uga daaya tii hore wasawni ku gurayay ma tii hore hooyaan ka soo qaaday tan laakiin maanta ana soo shaqaystay ba fahamteen ma malay diin shayga qiimihiisa waxaad garan markuu dhiig iyo dheecaan iyo waqti uu ka galo hadaad waxba gelin ma garanaysid qiimihiisa
marka diinteenna macaan ilaahayna siiyey inaan shaqadeeda tababarkeega u baxno oon habeenka jimcahana markaska imanno oo masaajideennan maasha allah dhalinyar badan oo khayr badan baa ka dadaalaysa iyo macallimiin iyo culimo badane inaan dadaalkaa diinad inankuna qaybteena ka qaadano wada niyooda insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteena allaha